السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سلام سومالي وين ميل بدون دعلك جوكتان انتي هبين وناكسن انتي مانو تاينا مانو وناكسن سومالي وحان ربا إن الميشان إنكيغا حضلو وحان أركي ماما الصوماليات مر والبنا أنيغو هويوين كان آدو جعلنا كهضلو وحان أركي كليب لغو سو شاقري واتسابكا oo looga hadlaayo hooya wiil garaacayso garaac maxaan ka wadaa canaanane hooyadaas waxay ku canaananaysaa hooya hee maxaa u samaysay intaad aaday ha marka waan la yaabay maamadaas maybe inay qof ehelkeeda u sheegaraysay laakiin oo ma aragtay baalkaas uu viral aaday nin walba u sheegaraynay wiilay ma aragtay ku qaylinayso oo leedahay maxaa darooga ku galay maxaa kan ku sameeyay wiilka taa magaciisa inaan sheego mar raba laakiin wiilka taa magaciisa ay magacaabayso oo leedahay hebel maxaa ku galay maxaa ku geey maxaa u sameysay ma fahmaysaa marka hooyadaas xanuunkeeda waan dareemayaa because dhibaatada haysato hooyadaas waxay tahay waxa ku dhacday wuusaan ka dareemayo waa hooyo dadaashay waa hooyo saaka salaad shaqo ka imaaday cunto karinayso wiilkeeda wax walba iyada u sameynayso asagii wiilkii la wareysana marka wiilkii wuxuu yiri hooyo dhageyso yiri samarka uu yiri markuu iskuulka xirray samarka dhan uu yiri aniga waan gadaa yiri alaabtan bal Soomaaliya dhageysta alaabta marka maxay tahay dadka wadamada jooga waxay u maleeyaan wadankeena jooga alaabta la gadaayo alaabaha maartay bakeeriyada iyo baaquliyada ma ah maya shaqo waa weyn waa alaabaha waaweynka ma fahmaysiin waa dadkan maartay daroogadii alaabahan ka shaqeeya marka wuxuu yiri wiil Afrikaan ah ari isticmaalo wiilkaas aan alaabta u gadaa hooyada wiil way weydiisay waxay tiri is it a black guy ama the blue guy ha marrabi maartay aan racist maartay aan ku hadlo waxyaalo oo dadka kala radooda ka hadlaayo laakiin way weydiinaysay ma wiilka madoowa mas waxay tiri wiilka Soomaaliga markaas uu yiri wiilka madoow ma aha waa wiilka Soomaalida ilmaheena iyo anaga dhanba waxaan aaminsanahay Soomaalina anaga Afrikaan ahayn oo dadka kale yani madoow iyo waxyaalahaas aan ku cayna marka horta Soomaaliya anaga Afrikaan ahaynay Afrikaan ka imaanay marka wiilkayga yara markaan weydiiyo waxaan ku dhahaa Adnan wiilkaas galaaskii miyaha yizani boy ha inta ka imaade yeah is a new boy hooyo ma Soomaaliya no ma yo Afrikaan ورعدنا أنا ذيك سو أفريقيا ما تيت ما يو أنا أفريقيا مي هذا محاتاي أنا يقول حنا هاي صومالي وعدنا كيرا يقول طبعا صار راح يجرا مركا واحد عادي ما هو يدوي ويدينا يسي حيل هذا وريا أنت تكي ما دم حقص ما ينسى مركا ويل كان واضح دا عد كتاي وشيء قاعد يقول هاي وحن كي ما بي أنا وانجذا أي أدي أنت مركا وقتي هذا ما عرفت أدي كم قد تقول وأما شقي مالي جرت أنا أنا على بس انجذا ويدي صبحي تلقاه تلفونكاده وحير تلفونكي ويلكاس اي قات marka hooyada waxay leedahay wiilkaas sababta telefoonkaada aad ugu dhiibayso sababta aad wiilkaas telefoonkaada ugu dhiibayso maxay tahay because wiilkaas telefoonkaada uu ka soo qaadan karaa waa isticmaalaya number meel kale lagu wacaya booliiska adiga ku taragaraynaysa asaga daacadnimo wuxuu ku qabo wuxuu leeyahay maxay dhabe because asaga credit ugu ma jirin telefoonkiisa bal Soomaaliya ilmaheena fiir daacadnimada ay qabaan marka ana waxaan idin sheegayaa ilmihiina kala hadla credit cardiyadooda telefoonadooda inay nimankan kale ka isticmaalaan cunugaaga ma aha inuu jecel inuu alaabahan gado laakiin alaabihii waa la gelinayaa khaasatan ilmaha Soomaalida daroogada waxay u gadayaan iyo balaayadan ma aha inay gaajo ka carayaan no qofkii dhaa guri Soomaali gaajo ma taalo guri Soomaali gaajo hooyo Soomaaliyeed ilmaheeda cunto way siisaa dharna way u gadaa cunto way ka dirjisaa oo caloosh waa loo buuxiyaa dharka ugu qaalisan waa loo iibiyaa laakiin waxa jira wax la dhahaa Soomaaliya peer group pressure marka waxa waay ilmahan kale ku dayanaya hadda ani qaasatan Ingiriiska 2 sano deganahay waxaan ku arkay waxaan la yaabaan ku arkay Ingiriiska waxaan u maleyn jiray waqtigeyga hore inaan ma aragti aan ilmahan la dilo waan maqli jiray hebela la dila laakiin ilmaha la dilo waxaan u maleyn jiray in loo dilo le darooga inay gadaan laakiin hadda waxaan soo ogaaday asxaabay ilma iska fiican oo ma sha Allah oo ayaga dhibaato qabin oo daroogi balaayo ku jirin laakiin midka saaqiday oo iskoolka ka baxay inuu ilmaha taageed gareysanayo marka hooyooyinka Soomaalida waxaan ku waanin lahay please
aabbo ma bijire oo aabbiyo Soomaalida guriga way ka wada maqan yihiin Somali houses ma haysana aabbo alxamdulillah anaga aabbahay inuu noo jooga ilaahay noo barakeeyo asag iyo ku kala fiicanba ilaahay khayr ha siiyo ما شاء الله ودعينا يعني أوديك هذا نقول دعينا إلهي خير هالسي أصدقي يا أبي أشكره في عن ما شاء الله مركا وحشة يا هو أبوين بدنا عدو ذيك عرين بنانا إسكافليان لكن علمه هذا أنك ورقبل عنا جنب بري مركا الحرة وبوليس كأي قبطان محكمة تروح محكمة لوليبو وحاواي نولا الشيء تكون جري واكتاجي نولا عصو بالله بايا أبينا واحد أقاته كان كلو جرو كون جوجرة إنه بري هذا اللينك قبصناه Soomaali waxay ku mahmaadaa Soomaali hortu way badan tahay oo nin walba lahjadiis waa gooni laakiin aniga Soomaali aniga waxaan maqli jiray mahmaha ya nin walba ratiga dambe sanqaadkiis leeyahay yani ratiga hore sidoo u soconayo oo midka dambana ula soconaa amal miya saasan u maleynaya mahmada fiican ma fahmayo marka hadii wiilkaada weyn uu alaabahan gado maslaykile waxa waaya inay ku dambana isku dadeedaan oo hebel waxba lama yeelin anigana waxba la yeelay amal ma fahmaysiin marka ilaahay noo fududeeyo hooyadaas marka sheekadada waxay ahayd hooyada wiilkii dhibaatadii wixii sheegtay marka hooyada waxay ku dagaalamay aniga dharku ma gadamiya lacag kuma siim wadiya siisa balkii wal hooyadaas aan ka naxay wallahi wax walba ay samaysaa ani waxaasan ku sameeyay yes wadiya samaysaa dharka ma ku gaday haawad ii gada maxaa ku gay ayni dhimanayo leh ما فهميسين مركا waxaan idin sheegayaa dhibaatooyin badan iska jira ilaahay noo fududeeyo marka isku soo duceeyna Soomaaliya daroogadan waana dhax gashay the Somali community meel walba dadka kale community ay qabaan ilmaha maartay youth community ga wax u qabta anaga laakiin Soomaali ma haysana meel community oo ilmaheena yani aadaan hata footballiyada ama during the free time ay ku iskiga soo dhaleelaan ma haysana laakiin anaga dhibaato weyn aan haysan Soomaalida marka intaasan idin sheegayaa hooyadaasna masaakiinta u soo ducooya ilaahayna noo fududeeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh